الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاashiin Jawaar Xuseen halka nagala socotaan channelkeena Jawaar Xuseen inuu maamusha waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan sida anigaba aanu caafimaad qabo. Allah subxaanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo. Allah subxaanahu wa ta'ala qof walba muraad leh muraadkiisa macsi lahayn ha siiyo. Allahumma aamiin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mashquulna ma dhihi karee caajisna ma dhihi karee waxa ay haysto culeys ay haysto culeyskaas oo ah yani arina faraha la galay arintaasna waxaan rabaa ilaahay idinkiisa in aan kasoo baxo hadduu ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u kaashana bacdallah waxaa u kaashanaa idin kaashana asxaabteeda igu xiran linkii hoos idin soo dhiganaa linki ayaa hoos idin soo dhiganaa linkigaas waxaa u baahanahay inaa waxa awoodaan waxa meesha ku qoran qof walba wuxuu awoodo wallaahi waana insha Allah waa idin soo faahfaahin doonaa arin oo cajiib ah lugaha kula jira arin cajiib ah faraha la galay ilaahay idinkiisa idinkeena ahna inaan ku guuleysanayo ujeedaa biidnillaahi waaxid al-axad hadda wixii ilaahay xaqiisa ahaadaan hadeen ku guuleysan waa in hadda ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa ahaatay laakiin waxaan rabaa ilaahay baa wax badbaadin kare naf nool inaan badbaadiyo naf nool inaan afar darbi ka soo saaro banaanka u soo saaro naf nool oo ku qaangaartay xabsi dhexdiisa rabaa inaan banaanka u soo saaro ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa waan rajaynaa inuu ilaahay ugu caawin doono garabkeena waa u baahanahay ani wixii karaankayga waa qabtay waxaan samayn karo waa samee laakiin garabkiina u baahanahay Soomaaliya maanta waa idin baahanahay weligii waa idin baahanahay ma idin dhihin wallaahi maanta waa idin baahanahay ilaahay baa baahida loo bandhigtaa laakiin maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkaygu waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala garashadan oo maanta i garansiiyay wallaahi billaahi waa nimco aan la heli karin marka garabkiina amaanta u baahanahay linkeyga hoos idin soo dhigaa qof walba ha ku dhufto okay meesha ugu baxay tan kale qiso cajiib ah noqdaa qiso cajiib ah gabadhii qisadan ay ku dhacday soo gudbinayso waxay leedahay wiilala iga weyn aniga waxaan ahay curdii gabdho badan iga yararay dhahday waxaa idilay dhahday wax soo socda inaan ka fikiro mustaqbalkaaga soo noqon doona waxa noloshaas ay noqon doonta nin noocee ah guursa doonta inta kada almuhim subhanallah mar walba adigu wax soo socdo aadan ogeynba ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaligiisa u sugnaatay inuu ogaado aad ka fikirtid kolma adi noloshaada ay dib u gurataa kolma adi xaal nafsiya ama xanuunka nafsiya alla noolaataa kolma adi wax soo socdo maxaa kugu dhici doonaa ka walwashid waa kolma adiga naftaada aad damirtay oo dhulka ala gashay weligaa wax soo socdo ha ka fikirin wax maadiyo tagayne noloshaada ha ku mashquulin taas macnaheedu ma ahan in wixii maadiga ahna fikrad iyo aqoon laga qaadanin no carabtu waxay dhahaan ilu maa cindu maadi maalu xaadir qofkan wax maadi lahayn qof joogaba maahan hadda wax soo socdo mustaqbalkaaga wanaag iyo waxaas iskuulkaas ka baxaa waxaas yani normal waay jaamacadaas ka baxaa waxaas barana insha Allah guri qurux badan yeelana waxaas wax weyn ma laakiin noloshaada ma xumaan doontaa haday xumaato yani salbiga danka oo xumaanta kaliya inaa u badisid ma qurux badno المهم gabadhan waxay dhahday waxaas ma wax kale ma ka fikiraay marka waxay dhahday subhanallah marka waxa jiro waxa sidii adii niyadaada tahay marmar sidii ay noqonaysaa ahyaanan ma badno laakiin mararka qaar niyadaada hadii xumaan soo socoto unka akbagto xumaantii ku iimaanaysa gabadhii maxaa ku dhacay in Allahu musta'an ay guurka ka raagto walaalaheedii ka yaryaraa dhan la soo doontay la guursaday ayadii ku soo hartay ayadii nin naaqabo nin naag soo xumeeyay nin inta ka soo dhac unba soo doonanay intaan diiday dhahday aqligaaga ma galay Jawaahir intaan nin oo diiday oo soos oo nin xun nin naag soo dheelay
anna waxaa ahay dhahda dadka dabagala ninaa kusoo dheelay nin caruur soo dayacay almuhim nimankaas un waa fekeraa idilay dhahday feker waa iska shaqaystaa ay dhahday alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala bay mahad u sugnaatay laakiin fekerkii kaale aday qalbigayga ka saar waxay sidaas ahaata maalin inuu meelaha warwareegaya dhahday meelaha warwareegaya wareeg ahaa ma ahaya يعني social mediaha tiktoka snapchatka instagramka waxyaabahaas youtubeka anu wax wareegaya dhahday qisasa dikri iga soo horbaxday dhahday inay walwal ka dejiso akiid walwalku way dejisaa allah bidikri illahi tadma'ina alqulub ilaahay subxaana watacaala qolkiisa soo mahan marka subxaana allah waxa inuu qalbiga dejiyo wixii aan arkay dhahday المهم waa iska daawaday waa iska dhageystay mar walbana waxay dhahday allahumma musta'aan waxaan dhageystay dhahday shay hadii adoo murugsan waxaas murugu ka baabi'ina waxaas haduu ka soo horbaxo waa wax ilaahay risaalad ku soo diray oo wax ilaahay subxaana wa ta'aala xaqiisa ka socdaan ilaahay uu wato المهم waa daawaday dhahday in istighfaarta saliga nabiga xawqalada waa qisas dhikr waan sii gudugalay midba mid ay sii dhiibtay midba mid markaas waxaan isdhahay dhahday adi maxaa ka naaqosan yani maxaa ka dhiman adigana ma istighfaarta sameeysid adigana ma saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam sameeysid adigana ma xawqalada sameeysid maxaa ka naaqosan maxaa ka dhiman waa may wato ilaahay subxaana wa ta'aala amuraha ku furfura ku saqira waxay dhahday daada soddonku waa tilaabsata 40kiya waxay dhahday ani isjiidoyna ani waxaan leeyahay maya ma soo gaaray asani soo gaar waa ka ku dhow leeyahay ay dhahday 40 yani u sii dhawaa cagta u sii gelin rabaa waxay dhahday istighfaartiya bilaabay maalintii 100 maadaama ku cusbaa inaa ka caajisay marka bilaabay adan kor isku soo qaaday dhahday inaa ka caajisay hada adreemay dhahdan kor isku soo qaada waan waday dhahdo horta number 1 waxaan dareemay dhahday xasilooni deganaan waxay dhahday waxaan dareemay wax soo socda iyo wax tagay iyo wax inaan dhan waxaasoo dhan aan ka fikirin ani dhan waxay dhahday qof cusub oo kale hadda caloosha hooyadiisa ka soo baxay camal aan noqday dhahday noloshii inaa iska kay bedeshay nafteyda lay tusay dhahday nafteyda uu soo jeestay inaa soo qurxiyo inaa isnaashnaasho inaan labisto waxaas dhan lagu dhahay dhahday niyadana iga dilmeed waa waday dhahday istighfaarti way sii dheebtay dhahday ilaa 500 aan gaarsiiyay dhahday noloshiyaas ku kay furfurtayaan ay dhahday habbiya dareemay dhahday runtii waxaan dareemay in nafteydu wax aan ku soo kordhiyay dhahday akiid maadaama dhikriga ilaahay subxaana wa ta'aala naftaada ku soo kordhisay wax weyn aan la heli karin ku soo kordhisay subxaanallah waxay dhahday waan waday dhahday istighfaarti waan waday saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale xawqalada sidoo kale dhahday waa sameeyaa maalintii intaa awoodaa aqrinaa dhahday shaqadeyda anigoo ku jiro sida aad sheegtay dhahday waxa ku soo xasuustaa ilaahay ku roon tusbax midba meela dhiganaa dhahday haduu tusbax caadiga noqdo kan oo faraantiga haduu noqdo midba meela dhiganaa dhahday sidiisay u aheeday dhahday wallaahi wiilaan isdhehaynay dhahday jawaahiray wiilkaasaa guursanaysaa ilaahay subxaana wa ta'aala ii soo diray weligiisa aan guursanin weligiisa ma shukaansanaa dhihi karaa akhlaaqda wanaaga naxariista waxa uu leedahay dhahday wax walba ma isku darsaday markaas wuxuu dhahay shukaansi badan marabo hadal badan inaa waqti kaaga lumiyo aadna iiga lumisid marka mustaqbalka u baahanaa hada da'deedu waa hal sana kala weynahay dhahday aalmi qofkii weeba hal sana kala weynahay waxay dhahday wanaag waan yaabay dhahday talow kan qayaan leh ama wata haddana waa istijiyay dhahday waa istaqaaraystay ilaahan bariyay ilaahay subxaana wa ta'aala aan ku xirnaaday dhahday falxamdulilah waa isguursanay dhahday laba gabdhood allah subxaana wa ta'aala na kala siiyo qurux badan dhahday wasku dhacnaa bili aadanaa nahay oo weligiin iskuma dhicin ma dhahaynay dhahday laakiin isku dhaceen waa ku degdeg xal ugu imaaday dhahday isku dhaceen waxay dhahday waa mid xal degdeg ah u keeno isla markii anagoo wada qosleyna hadda isku xanaaqeynay dhahday anagoo wada qosleyna haddana waa kana ani asi waa iskala bixin weynay dhahday
yaa xun yaa wanaagsan waa iskala bixin laakiin waxaa noo soo baxday in labadeennaba aan wanaagsanna waayo waxaana banaanka nagama baxaan oo gurigeena dhexdiisay ku egyihiin laakiin waxay dhahday marnaba nolosheena maalinba maalinta kale waa kasii qurux badnaanaysaa waa ka farxad badnaanaysaa waxay dhahday waxay saas ahaataba wallaahi marnaba ma joojinay dhahday istiqfaarta waxaan ka dhigay juz min xayaati qayb ka mid ah nolosheedaan ka dhigay dhahday xowqalada waa sameeyaa saliga nebiga waa sameeyaa istiqfaarta laakiin waxay ii tahay dhahday asaasi subxaan allah nacam ilaahay subxaana watacaala dhahay soo mahan faqulta istaqfiruu rabbakum inahu kaana qafaara يرسل السماء عليكم مدرارا سبحان الله استغفارتا قفكي أبد ربو قفكي قور ربو قفكي رزق عريري كوعة قفكي نرش عريري كوعة يعني قفكي عدي دول أبار هدو كدعو أي روب ربان اللهم استعمح أحسوستا الصومال لوحيدي أولا سارن جري إلهي وكورويه madax looxyadii la saaran jiray ka waran istiqfaarta hadii lagu bedeli lahaa aarana imaan laheed isla markii roobka soo da'i lahaa maleyna hal mar istiqfaarta 10 kun 20 kun loo fariisan lahaa marka istiqfaarta waa mucjiso marka waxay dhahday waxaa idin farayaa noloshiina ku qurxisaan istiqfaarta dikriga wallaahi waa mucjisay dhahday wallaahi waa mucjiso qofkii maalintii ilaahayow 10 allah ka dhigay istiqfaar aan sameynaynin ama astaghfirullah ana dhahaynin wallaahi waxay dhahday nolol ciriiriyo mugdi badan ay ku jirtaa ay dhahday waa inaan soo arkay ka bax ciriirigaas ka bax mugdigaas waxaana kaga bixi kartaa ay dhahday istiqfaarta noloshaada wax badan ay ku soo kordhinaysaa wax badanna way ka naaqusinaysaa istiqfaarta waxay noloshaada ka naaqusinaysaa ay dhahday ama ka dhimaysaa noloshaada wax walbo salbi ah wax walbo xumaan ah ku fikiraysid noloshaada way ka baabi'inaysaa wanaag walbo noloshaada allay leeyahay waa ku fikiraysaa is leedahay oo wanaag naftaada inaad u qabatid arabtid culayska saarna ilaahay wuu kugu fududeynaa wax walbo noloshaada as lahayd weliga ma qabsan doonid ilaahay wuxuu ku tusaa dariiqa u mari lahayd ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tusaa meelaha wanaaga ku jiro ka caajisnayd ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tusaa qofka aad diidi jirto wanaagaaga ku jiray marka subxaana allah istiqfaarta kaliya maahan dikriga allah subxaana watacaala waa mucjiso ka mid ah mucjisooyinka ma fahamteen ma garanaa qofkan noloshiisa maanta dikri ku noolayn mise allah mustacaan ilaahayow 10 istiqfaar allah ka dhigay 10 saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam 10 xawqala allah ka dhigay la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim 10 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi dunuubtaada lagu dhaafay subhanallah hadaadan sameeyno runtii waxa noloshaada mugdi ay ku jirtaa mugdigaas ka bax dikriga allah subxaana watacaala kaga bax noloshaada ku qurxi dikriga allah subxaana watacaala qanacsanaanaad dareemaysaa marka ahlu dikri tahay waxaad dareemaysaa in noloshaada ay muhiim kuu tahay wax walba noloshaada kaaga qaalisan waxaad dareemaysaa waxaa lagu tusinaya naftaada qiimaha ay leedahay lagu tusinaya wanaaga naftaada ay leedahay lagu tusinaya runtii dikriga waa mucjiso ka mid ah mucjisaadka ilaahay subxaana watacaala adduunkan noogu keenay ilaahay subxaana watacaala hanaga dhigo kuwa naftooda wanaag dikriga oo la garta kuwa xumaanta dikriga iskala reeba allah subxaana watacaala hanaga dhigo ilaahay subxaana watacaala kuwa dikriga loogu dembi dhaafa hanaga dhigo dikriga ma ahan ismarkiiba inaa wax ku heshid marka horeba dembi dhaaf dunuubteena tirada ka badatay waa dembi badan nahay maalintii intaasoo dembiya naga dhacdo hadday dembi yaryar tahay hadday dembi waaweyn tahay walciyaadu billaah ilaahay subxaana watacaala ka magan galnay ilaahay subxaana watacaala kuwa loo dembi dhaafo qabrigooda loo waasiciyo sakaraadka iyo su-aasha loogu dhibin rabbi subxaana watacaala hanaga dhigo aamiin yaa rabbil caalamiin codsigaygan waa idin soo gudbiyey iiga soo jawaaba insha allah waa walaashiin jawaahir xuseen oo idinle kusoo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentiga noogu reeba like tan dhiirigelina noo tahay like noo saara
خير يا عافمات يا برواق هذا الرجينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.